بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal halkani waa radio codka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Nuurtan Aani oo hawada soo gala toddobaad walba maalinimada Axadda saacadu marka ay tahay 12 ilaa 1 duhurnimo barnaamijka maanta aan idinku hayno waxa kamid ah Saciido Maxamed Goobdoon oo kamid ah musharaxiinta Soomaaliyeed ee iyagu u tartamaya golaha deegaanka magaalada Helsinki ayaa waxay kulan la yeelatay ragga Soomaaliyeed ee magaalada Helsinki toddobaadkan aan ku guda jirno Saciido waxay kamid tahay musharaxiinta Soomaaliyeed ee iyagu u loolamaya in ay galaan golaha deegaanka waxaana ay u sharaxan tahay xisbiga Kokomos Saciido waxay soo bandhigtay qorshaheeda siyaasadda ay ku doonayso inay kaga mid noqoto golaha deegaanka waxaana ay kulan la qaadatay ragga Soomaaliyeed waxaan idinkaga dhaxbaxaba kulankii ay la yeelatay Saciido iyo qorshaheeda ay soo bandhigtay musharaxnimada iyo dadkii goobtaasi ka hadlay halka aad ka dhageysanaysaan walanta afka Soomaaliga ee codka dhalinyarada Nuurtan Aani sidaas iyo dhageysi haboon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sida caadiyan ah markuu ugu horeeyo intaan ka bilaabin ujeedada arintan marka hore horta waxaan ku furan doonaa aayaadka min kitaabillahi subhanahu wa ta'ala waxaana noo akhrin doona walaalkeen qadar insha Allah tafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم جزاه الله خير النبي أسقى بإلهي كوي وعمل فلا الله نجود عليه أنت أسكدي هذا إدين شيء ما أنت وجدت هالكني waxay tahay gabadha musharaxada ah oo u tartamayso deegaanka Helsinki sida daraadeed waxay soo bandhigi doontaa maanta barnaamijkeeda musharaxnimo gabadha waa Saciido Maxamed Goobdoon waana qof professional oo nurse ama xirfadeedu ay tahay kalkaaliso sanadkii 2010 waxay noqotay gabadha qaxootiga ee Finland ayaa loo doortay oo lagu siiyay bilad sharaf dawladda Finland ku siisay iyada 2012 ilaa 2014 waxa way Somali Ferco barhan yohtay Somali Ferco waa aad ugu mahadsantiin dhageysigiina haddana waxaan u yeerayaa al-akh Umar Jaamac dhagaweyne si uu kelmadiisa asna u sheegto haduu Ilaahay raali ka noqdo bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan aad idinku mahad celinayaa sida aad Soomaalinimada ah oo uga soo qayb gasheen qof walaalkiin ah oo idinka codsada inaad u timaadaan sida ka warqabtaan dalka kan laba doorasho ka dhacdo doorashada golaha dawladda dhexe ee baarlamaanka iyo doorashada kommunka ama municipalka marka gabadha waxay u tartamaysaa kuuntooyinka ama doorashooyinka oo municipalka ah doorashadaas kuma xirno qofka inuu haysto dhalashada dalka kan inuu haysto kuma xirno qof kasta oo sharci leh sharciga dalkan haysto uu ka qayb gali karaa wayna wanaagsan tahay inaad codkiina bixisaan oo aad siisaan qofku wuxuu ku bedeli karaa inuu codkiisa baxsho wuxuu doonayo markaas heli karaa marka in qof Soomaaliyeed uu kommunka Helsinki galo ama Saciido gasho ama qof kale uu galo waa wax wanaagsan weeyaan oo Soomaalida guud ahaan u wanaagsan marka aniga waxaan idin ka codsan lahaa dad walaalo anahay mataqaana inaan isku xirnaano oo aad cod aad bixiso subax u soo kacdo haduu walaalkaa wax taraayo aad siisid marka waxaan rajaynayaa mataqaana inaad u soo kacdaan maalintaas doorashada ama maalmaha doorashada oo u soo kacdaan oo aad siisaan codkiina Saciido ama haddii Saciido xitaa ay dooraneen qof kasta oo Soomaali oo doorasho muhiimad waxa ay codkaaga bixisid oo qof siisid marka gabadha walaashin waxay noogu timid in ay dadka Soomaalida ay ka codsato in codkooda siiyaan iyadoo doonayso in Soomaalinimadeeda iyo dadkeeda ay wixii karaankeeda ay wax u qabato waa mahadsantiin haddana waxaan u yeeraynaa walaalka labaad Ahmed Ibrahim Ducaali bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal runtii mujtamac badan baa ku nool
oo aanu nahay Helsinki aad bayna muhiim inoogu tahay in qof codkeenna gudbiya oo noqdo bridge-kii aan ugu gudbaynay mujtamaca kale la noolahay iyo gobolkaba inaan helno walaasheen maadaama ay runtii muddo badan deganayd khibrad badanna u leedahay iyo deegaanka iyo systemkeena ay muddo badan ku jirtay waxaan idinka codsanaynaa oo runtii anigu aan soo jeedinay ka oday Soomaaliyeed ahaan in xilliga doorashadu ay dhacayso loo soo baxo codkeena aan siino walaasheen ama walaalkeen kale laakiin se walaasheen maadaama waxaan ku barafar garaynayaa waa qof haweena muddana hadda meeshii joogtay khibrad badan oo la systemka iyo nidaamka halka ka jira sida aawadeed waxaan mar labaad idinka codsanayaa walaasheen in codka la siiyo si iyaduna ay inoo matasho oo aynu mujtamacii kale ugu xiranno aad baad u mahadsantiin haddana waxa weeye waxaan u dhiibi doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo Saciido ayadaa marka soo bandhigi doonta hadduu ilaahay raali ka noqdo qaabka ay wax qabadka iyo ujeedooyinkeeda barnaamijkeeda musharaxnimo hadduu ilaahay raali ka noqdo ku soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله إذا وذا السلام يا ومدة صوماليات مدة مسلمة وماشي سقوط تمت ما أنت ورطة فرحة ويني يتهاي هدي عن هذا الكيس ردا فنا ومقايد صومالي ولي ميمانين مركا تاسنا وحاول يقرأ على هذا وحلقة أبا ميلا بدنا كهذلي ميلا بدنا تجا صوماليا وهذلا عدانا الله هذلا لكن ماشي أنا وكلام إيمانين مركا ماشي ما أنت عني ما ضينا نوحي تصيصا Soomaali inaan ahay ta kale waxay tusaysaa in dadkeena Soomaalida aan u baahannahay macnaha inaan isku xirnaano waxaan horta aan taas qiirada iga keenayso waxay tahay meel aniga dadka iga socodka badan leh magaaladan oo maaragtay arrimaha bulshada ama arrimaha Soomaalida u socodka badan ahay waxaan tagaa meel caruur ay joogan waxaan tagaa ilmo Soomaali oo dhibaataysan waxaan tagaa hooyooyin waaweyn oo intaan Helsinki ka baxan booyoosa tagaa ilaa Kayaani Rovaniemi meel aad dareemi kartid qof maanta soo degtay oo meel uu aad lahayn marka dadkiina maqaayadaha haysto at least meel maaragtay isku maxaa la dhahaa aad ku sheekaysataan ama isku dacaayadaysan haysta laakiin dad waxaa jooga meel ay ku hadlaan ama meel ay maanta dukaanka sida marketka ay wax uga soo gataan aysan haysanin marka ani maanta waxaan idinkugu imid ma aha kaliya codkayga maanta adinkaan idinka wada rabaa ma aha laakiin laba arrin maanta idinkugu imid waa la weydiiyey maxaa Saciido ragga u ballansan yiri waxaan yiri ragga haddaan la hadlin aan ragga aan u tagin macnaha yaan aniga u hadlaaya yaan ka hadlaaya raggan aniga la kulmaaya yiri koona markaan ragga la kulmo kadib dumarkaan la kulmaaya dumarka Soomaalida waxa la kulmi doonaa insha Allah next maxaa la dhahaa sabida soo socota aniga horta hadaan wax yar isaga keen sheego macnaha siyaasadda waxa igu dhaliyay waxyaalo badan ay jirta waxaan joogaa keentada ama meesha ay yiraahdaan macnaha dhulkan joogaa aniga waxaan arkaa maalin walba waxyaalo badan marka qofka nolosha runta og ayaana wax bedeli kara wax bedelidaanka ma aha qofka markuu heer siyaasadeed uu ka gaaro wasiir ama maaragtay kan saan ay dhustaya macnaha baarlamaan ma ahna degmooyinka qofka wax uu ka bedeli karaa ani 92 wadankan soo galay dhalinyaranimo ku soo galay macnaha waxaan dareemi karaa dadka dhalinyarada wadankan haddana qof gabar ku soo galay macnaha struggle badan wadankan soo maray mid annagana wada midaysan oo ah qof walba macnaha inuu cararo asaga uu qabsan karo uu qabsado iyo mid guudoona midaysan inaan Soomaali lahay inaan dad muslim nahay iyo inaan dad madoob aan nahay oo qof walba meel uu dagaal ka galo dagaalkaas qof walba mida hara mida soo baxa mida meel dhexe ku hara midna meel sar u gaara marka dadkeena Soomaalida hadii aan maanta u fiirino macnaha waa dadka wadankan Finland hadii nolol la dhaho dadka ugu badan oo shaqeysta ama ka muuqda oo active hadii loo babar dhigo macnaha kurdida ama Iraaniyiinta ama Iraaqiyiinta laakiin lama arko macnaha Soomaali la faaninayo TV laga faaninayo waa yartahay aniga 92 waxaan wadankan waxaan ka dhigtay galaaskii ugu dambeeyay Berlusconi lukiyana inta lukiyan ku dhameeyay anoo finishkii ku qac ku wado alxamdulillah shahaadaan ka qaatay waan sii watay shaqadayda school nurse polytechnic oo Minkali University aan ka dhigtay oo aan special ku soo qaatay
Helsinki markaan kusoo noqday labada koodii Helsinki aan toos u soo degay aniga markaan u soo degay waxa waa shaqaan dalbaday alxamdulillah wadanka shaqa la isku cusuriyeeyaa way jirtaa laakiin ilaahay aniga lama kulminin shaqadii aan dalbaday neersi aan bilaabay neersigii isbitaalkan maxaa la dhahaa Huxi ayaa waxaan ka shaqeeyay qaybtaan ay dhahaan Lasten iyo Nuurten Sairala ina qaybta carruurta ayaan sanad ka shaqeynayay kadib waxaan u wareegay Laxo Sairala qaybta xanuunka gudaha iyo qalliinka oo aan maaragtay shaqo buuxda ka helay ilaa 2004 meelaha adiga waan iska carari jiray arrimaha Soomaalida xiisayn jiray macnaha waxaan guud aan xiisayn jiray dadkan xuquuqdooda in la arko sababtoo wadankan xuquuq waxa jira anaga namidaysa oo ah qofka meeshuu ka soo jeedo iyo diintiisa shaqada kuma laha laakiin xuquuq aan wada leenahay anaga kadib waxaan isku dayay meelaha markaan tagtagay inaan meel bal neersi kaliya aan ku shaqeynin aan meelo kala tago waxaan shaqo ka furnaatay xafiiskan ama hay'adan ay yiraahdaan IMSOI Toslito oo hay'addu wada xuquuqda bini'aadanka Finnish League for Human Rights meeshaasaan waxaan ka bilaabay sanad waan ku fikir waxaan sii shaqo buuxda haysataay bal hay'adan hadaa u wareegtaa ma shaqadaad ku soo noqonaysaa alxamdulillah sanad fasaxan qaatay waan ka bilaabay sanadkii markaan qaatay fasax hay'addu waxay leeyahay qof kaliya ajnabigan ka ahay waan shaqadan waan ku isboonaysiinaynaa waan ku baahanahay sababtoo ah waxaan arkay sanadkaas gudihiisa waxyaalo badan oo qofkii finishka uu markuu hadlo Soomaalidu u hadla aan la dhageysanay laakiin ani markaan u hadlo dhageysanayo ilaa hadda hay'adii aan u shaqeeyaa 8 sano ugu dambeysay hay'adaasaan shaqeeyaa dadkii qaar waxa laga yaabaa inaan qaar wadanka gobolada ka soo guuro gobolada inay igu aragteen qaar inay Helsinki igu aragteen macnaha wadankan meediyadiisa hadii la dhaho 5 sano ugu dambeysay aadan aniga ugu jiray ha u badnaatee 2011 marka ay siiyeen gabadha sanadka oo qaxootiga ayaa meelo badan leega wareystay waraysiga leega wareystana waxaan macnaha ku soo baxay 45 journal ayaa ay wareystay macnaha waxay ku soo qoreen qofka ugu badan oo la wareysto oo ka hadla arrimaha ajnabiga 45 taas journal aniga waxaan ballan qaaday maalintii la siinayay inaan tago meel walba oo xafiis maaragtay ay qaxootiga ay degan yihiin oo magaalada maxaa la dhahaa Finland oo dhan meel walba xira qaxootiga ku taalo sanadkii 2011 maxaa la dhahaa Bastan oo Keskus xerooyinka qaxootiga ayaan tagay oo wadanka wareegiisa ah waxaan idin sheegayna waxaan jeclaan lahaa inaad Saciida Maxamed Ali dhaha aad Google gashaan oo aan waxa aan qabtay iyo waxa aan ka hadlay iyo joornaalada aad akhrisataan qofkana waxa waaye siyaasadda maxaa ku dhalay wax baa ku dhalay qofka markaan sanadkii ugu dambeysay ameediyada saas u dhex galay arrimo badan oo ani waxa jira shakhsi ahaan oo aan bilaabay oo haddana ii yaala aan rabo inaan hore u wado sida dadka hadda maxay ahayd baasaboorada oo dadka waaweyn baasaboorada luqadda lagu xiray xafiiskeena meesha IMSOI Toslito alooytaan sameeyay bilaawan sameeyay waxyaalo badan aan lagu guuleystay waxaan kaloo sameeynay carruurta wadankan sharciga ka qaatay oo familkooda maxaa la dhahaa loo diiday in ay maxaa la dhahaa wadanka imaadaan waa taas miiskeen noo saarantay insha Allah waxaan rajeynayaa sanadkan intuu dhamaanay inaan sii wadno macnaha waxaan idin sheegay ma aha mid siyaasad kaliya aniga aan ku sameynayo waa mid aan Soomaaliyeed ku sameynayo waa mid aan ku sameynayo macnaha wadankan hadii aanan dadka wadanka aad u dhalatay aadan u hadlin adigana finishka meel kama gaaraysid meel macnaha noloshaadina kama gaaraysid qofkaagana kuma qabanaysid marka maxay walaalayaal maanta waxa aan aniga idin sheegayo waa waxaan aqoon u leeyahay waa waxaan maxaa la xirfad u leeyahay waa wax aan qaban karo laakiin waxaan idin kaga baahanaa waxa ay tahay adinka baahidiina inaad soo bandhigtaan qofka Soomaaliga ina garab qabataan sababtoo qofka Soomaaliga markuu halkaas tago waxa waaye qof sharci leh ha ahaado dhalasho leh qof finish ha ahaado adinka kaliya idin ma hadlaayo laakiin ummadda Helsinki joogto dhan u hadlaayo maanta ani hadaan baalkustada galo oo aan degmada galo waxaan u hadlayaa degmada Helsinki oo dhan waxaan ka hadlayaa maanta hadii qashin halkaas lagu soo daadiyo qashinkaas maxaa halkaas loogu soo daadiyaan u hadlayaa hadii qof Soomaali la dhibaateeyo muxuu qofka Soomaali lagu dhibaateeyaa u hadlayaa marka qof
qofkii idinku yiraahdo aniga Soomaaliya intaan aruuriyaan dabaqyo u dhisaaya waxa waaye ilaahay kama baqin qofka siyaasadda wax qabanaya waa qofka wadankaana wax u qabanaya adinkana wax idin qabanaya qof ma jiro markii la soo doorto Soomaali kaliya ee musleeya ama Soomaali kaliya ah marka aniga sanadkan bishiisii labaad ayaa waxa la ila galay inta xisbi oo aan macnaa wada hadal la galay waxa aanan wada hadal la gelin xisbigan ay yiraahdaan Persuwa Malayneen iyo xisbiga ay yiraahdaan Kirista Dimuqraadi oo asagana aniga diinteeda ii diiday inaan wada hadal la sameeyo iyo xisbigan cusubka ah laakiin inta kale xisbi oo jirta miisaan la fariistay aniga miiskaasaan la fariistay waxaan fiiriyay xisbi walba macnaa waxyaalaha uu ku fiican yahay waxyaalaha aragtidiisa ay tahay iyo waxyaalaha aniga aan aqoonta iyo jaaniska aan wax ku qaban karo umadeedna wax ku qaban karo anigana wax soo qaban karo waxaan go'aan ku gaaray xisbigan kokomuso hadda aan ka tirsanahay oo memberka ka ahay madaxdiisa la fariistay ba ministeriga la fariistay Ben Siskovic oo hadda ii ah kansal ay dhustayaan ninka ah wuxuu yahay maxaa la dhahaa maxaa la yiraahdaa tuki henkila ma aha wuxuu yahay maxaa la yiraahdaa baaliko ina qofka campaignkayga baalikada waayo oo meelaha ila tagaayo ina waxyaalaha ila sameeynayo marka xisbiga markaan fiiriyay xisbi madaxdiisa adigaba ay ku taageerayso oo iyagana ay dareemayaan waxa waaye waa dadka waxba ka bedeli kartaa at least waxa waa qofka hadii aad maanta ba ministeriga aad la fariisatay oo aad baahida Soomaalida iyo dhibaatada u sheegatay already waxa waaye wax un ba gaartay marka sababta xisbiga ku doorta kaliya ma aha xisbi weyn oo Helsinki haysta waaye laakiin xisbiga waxa aan ku doorto kaliya waxay tahay dadkeena Soomaalida reer guuraya nahay ninka gobolka hadda maanta soo degay bari Helsinki ku soo guuraya marka xisbiyada waa weyn oo Helsinki awood ku leh oo maxaa la dhahaa Helsinki laga soo codeynayo haddaan Soomaalida ay wax ku darsanin waxa waa meel aan anaga u socono gaarayna malaha arrin waxaa jirta ninkan baalikada ah oo igu dhiirigeliyay oo ah dadka yuhuuddu dhahay aniga aan ka tirsanahay wadankan xagga diinta way ka midaysan yihiin xagga socialka way ka midaysan yihiin xagga cilmiga iyo xagga ganacsiga way ka midaysan yihiin marka Soomaalidiina hadii aadan intaas ka midaysneen meel aad gaaraysan ma laha وانا رون مبدا in laga yeesho politicada in mabda laga yeesho in xagga diinta la isku xirnaado mabda laga yeesho aniga dreamkayga waxa way baan idin sheegayo hadii aan Helsinki kaabunko aan galo waxa waa masaajid Helsinki ku yaalo oo calaamadii ay ka taagan tahay islaamka ma jiro waxaan ku dadaalayaa hadaa Soomaalida aad garab qabataan oo aan meeshaas galo inaan ku dadaalo in imaarad laga taago sababtoo ah masaajidadayna meel ku dhudhuusan yihiin in darbiyada lagu soo qoro kaliya la dhaho ma aha laakiin waa in imaarad laga taaga Sweden way ka taagan yihiin meelaha kale way ka taagan yihiin wadankan waxa jooga Tataari kuwa la dhaho oo kontameeyada ay wadankan soo degeen imaaradoodu waa ka taaganta marka annaga maxaa noo diida muslimka wadanka ugu badanaa inaan dadaalno siyaasadda halkaas ka gaarno laakiin aniga saciida aan inta meeshaas taga kaliya wax ma qaban kar baan idin sheegay adinka waxay la qaban kara bari dadkan ku soo noqonay waa adinka wadankaana waxa qofka aad u codeynaysan walaalayaal waxa idin ka codsanaya inaad fiirisaan qofka Soomaaliga magaaladan waa laga wada soo sharaxan yahay in la soo sharaxnaadan waa arin aan waxa uu arkaa positive inana dad badan in la helo inay soo sharaxaan sababta waxay tusaysaa dadkii in siyaasadda Soomaalida ay xiiseynayso oo wadankan la badan yahay laakiin dadka codeynaya ayaa choice iska leh politicada hal arko dad badan inay jiraan laakiin ani waxaan idin ka codsanayaa Soomaalida hadii aad dad u codeynaysaan inaad fiirisaan qofka Soomaaliga ah oo soo sharaxan 10 sano ugu dambeeyay muxuu asaga qabsaday muxuu dadka u qabtay bulshada finishka muxuu ka taagay bulshada Soomaalida maxay ka taagan tahay taas hadaa ugu codeysaan guulaan gaarayna aniga hadaa taas ugu codeysaan waa meesha ugu muhiimsan oo aan gaarayno sababtoo ah waxay noqonaysaa waxa qiimaysan codkiina qofka asiinaysaan qof biri asaga wax isku qabanayo dadkiina wax u qabanayo taasna waa mid ay ka codsanayo laakiin ani waxaan idin sheegay qofka markuu siyaasadda uu galo uu siyaasi noqdo waxa way aniga ii codeynina ma idin dhahayo aniga codka
وإذا كسجايا وحنا رجينا يا ما أنت واحد إذا شيء بدو يوصل نقنيسان هذان أنا بعض الصور قال إيه هذان قريبة سياستنا تنهض عن ما أنت وقال ما أهمت إن مركي تجمعين كلا جبحوا إن أنا سكفر يصنع معها سياسة دتك الصومالي ده هدي وضعن إلا هير وحن جعلها إن كان صانع مستيان كجارو ودن كان هذا ما قام وحال إسكبر ترمينولوجي إن محيه إن حلبانا هي صنع ودن كان قف حلبانا مجري تنهض عن كسر شرحنا هاي دجموين كان حلبان لما يرهدوا حلبان وحال ده نينك برلمان كفردية قف برلمان فردية أو أجنبي أهل مجري فينا هل ويلو حكجر مذو إن يانا طيب أنا إدهان ومذو ده فينيش أسوكر صدق فينيش أنا أدلي لكن قف إن أصل كيس أجنبي أو برلمان كجلو حلبان مجري إن تندموين كنا إن أنا حلبان ومسعود لكن إن شاء الله حلبان أفرسنا كدب وصوش الرحايا لكن تاسنا وحى أوجاتان إن إرجع عاد استعمال إنسان أما إرجع أو ضدك عاد ليه صومالي حلبان بدنا أجرا حلبان مجران حلبان أجنبي مجرو حلبان كله أو صومالي مجرو لكن ضدك هو دجموين لكن دجموينك وحى كليه أو عن قصة مين كنا وحى تاي قف كمركو دجموينك وحكسو أساسه أيوه قبان كرا sababtoo degmooyinku waxa ku baranaysaa sharciyada lagu dajiyo waa meesha iskuulaadka problemkiisa laga xaliyo waa meesha socialada laga xaliyo waa meesha arrimaha bulshada oo dhan miiska la soo saarayo oo lagu bilaabayo marka qofka markuu halkaas ku tababarto biri heer wuxuu gaari karaa siyaasadda waa duu asi dadaalayo marka walaalayaalow ani ma idin kaga sheekeenay dhibaatada Soomaalida wadankan haysata jaaniska aan hadda haysanana oo degmooyinkana waxa ay tahay qofka Soomaaliga intuu codkiisa la seexan lahaa waxa lagu qaatay hadaa qof Soomaali ah ka heli weysid aragtidiisa ka heli weysid ninka gaalka inaagta gaalka xataa uu coday hadaa aragti ku raacdo sababtoo wadankan sharciga yaala ma aha sharci islaami oo adin lagu dhaqaayo marka codkaaga xuquuq baa leedahay codkaaga ha la seexanin حتى وحلا أركايا أنت قفاض وأجنبي أنت حافظات ولا قصة عديسة أنا ما أنت مركان ماشى أنا أنقله وحن أركايا حافظها اللي يقصة عدية الدراسية وضع أركايا مركا ما أنت أنا وحن إذا كوجو إمد أو أن الرمانة ولما وحن جعلنا وقدامنا سؤالي ويديسان إن أنا هدي عن هالنقطة إن أمانه لكن واحد إذا شيء جاي أو عن كجفي عنها هاي ضدك إستشار الرحي واحد تاي أنا مجعي وجهي قال لي قالنا قف كمركي مجعي سي وجهي سلي قالنا وحواي إن ما أنت قف والبولا فريسان كرا أقانت وجهي مجعي ضدك أي قالنا كلية ما مذا أنا عن ضدك صاحب لا هي ومذا أنا ددالك يهرمرك أو كجاري marka taas ina qofka ku qiimeeysan wadankan waa taqaana maanta nin iyo naag haduu meel soo wada maro markaan aniga nimanka Soomaalida u hadlo ani waa la dhageysanaya sababtoo ah waxa la dareemayaa qof Soomaali oo dumar oo hadana nin u hadashay markaan dumarka u hadlo waa la dareemayaa laakiin wadankan waxa ugu badan ay dadka dhageystaan dadkan finishka waa taqaana qofka dumarka aad ay u qiimeeyaan marka ani kama wada qiimeeskaas dumara ragga ha u codeynina kama wado yan qalad li iga fahmin dadka soo sharaxana dad Soomaaliya soo sharaxan laakiin ani waxaan jeclaan lahaa mar walba inaad qofka aad u codeynaysaan aad ku qiimeysaan maxaa la dhahaa beeskiisa waxbarasho beeskiisa aktiifnimo beeskiisa codeed gabadha maalin hore waxay weydiisay waxay tiri waxaan ka fiiriyay tiri maxaa la dhahaa meesha madaxweynaha laga casumay marka Soomaaliyana waqti hore ugu dambeysay saas ma u maleynayeen inaa hidiyo dhaqan meel la tagaysid gabar Soomaaliya ah hidiyo dhaqan inaa meel la tagaysid ma u maleynayeen inay tiri oo gabadheeda ay weydiisay marka waxaan ku iri aniga hadaan dadka finishka ah hidiyo dhaqankeyga aan ku faanin maxay ii maleynayaan qof bari jidka ka soo kacay ii maleynayaan marka qofka Soomaaliga waa inuu ku faanaa meeshu asalkiisa ka yimid Soomaalida uu yahay laakiin waan kala duwanahay dadkeena waa kala fikrad duwanaan karnaa waa kala aragti duwanaan karaa laakiin ma aha qofka Soomaaliga inuu qofka kala ka xun yahay laakiin inuu qofka ku faano finishkan waxa ay qiimeeyaan qofka meesha uu ka yimid ku faana marka maanta aan codka finishka aan ka raadsanayo waxa iiga qiimo badan cod Soomaaliya oo aan 80% Soomaali aan ka helo
sababtoo ah finishka waxay arkayaan intaasoo ajnabi ama intaasoo Soomaali markii aan ii soo codayso berrito anaa la igu tartamaya waxa la igu tartamaya inaan berri dadkan wax u sheegi karo iyagana aan wax u sheegi karo laakiin haddaan finish aan kaliya iyo balila iyo kuna haaga iyo meelaha ay finishka lacaglayda ay degan yihiin aan tago oo aan iska dhigo mataqaanaa qof oo finishka iska galaayo waxa waaye waxa leeyahay saaxiibadeed iyo saaxiibkeeda meeshaas degan waxa waaye Soomaalida meel kama taagna marka walaalayaal qofka Soomaaliga ina qiimeysaan aniga waxaan ballan idin kaga qaadayaa waxa aan balmay idin dhahayo intaas wax ka bedelaya arrimaha aniga miiska ii saaran oo aan rabo bisha 9aad oo aan rabo bisha 11aad iyo wixii la mid inaan sameeyo waxyaalo badan hadda waxa iigu soo horeeyay oo aan bisha 9aad aan balan u leeyahay dadka Soomaalida ah oo Soomaaliland u dhashay oo sharciga loo diiday inta kaamin ku jirta ma maleyn kartiin meel maalin hore waxaan tagay ruuki la dhahay waxaan tagay La Peranta oo Soomaali loo diiday oo la dhahay Soomaaliland ka timaadeen sharci idin ma siinayo marka dadkaas Soomaaliland ka yimid waa Soomaali maxaa loogu diiday sharciga waa inaan taas u hadalnaa ma aha inaan dhahnaa anaga ani xamaran ka imaaday inaan dhahnaa ma ani xamaran ka imaaday maanta qofka Soomaaliga ah oo soo galay gurigiisa oo caruurtiisa lacagta cuni lahayd intuu uu doon soo raacay oo maxaa la dhahaa diyaarad halkan ku yimid bari waxa waay qofkaas hadaan anaga u hadlin waxa waay dhibaato anaga soo gaaraysa marka waxyaalahaas waa waxyaalaha aniga miiska ii saaran hadii aan cod sii heloon aan berina aan sii galana baltustada waxa waay waa mid aan aniga guul weyn ku gaari karo oo ah dadkayga intaan wax u qabto berina aniga markaan wax isku qabtana waxba idin qabanaa been mi idin sheegaa qofka Soomaaliga ah wuxuu wax ku qabanaya markuu asaga naftiisa wax u qabto markuu gurigiisa wax u qabto markuu xaaskiisa wax u qabto markuu caruurtiisa wax u qabto oo adigana wax ku qaban karaa marka gabar iyo nin aanan iyagu wax isku qabanin wax ay idin qaban karaan malaha marka taasna inaad ka fikirtaan qofka codka siinaysaana aad u aragtaan micnaha maanta hadii runta ay noqoto Helsinki waxa laga soo saari karaa 3 qofood oo Soomaali ah laakiin ma dhacayso waxay isku dhacaynin dadkeeni iyagoo xataa qofka xaasidaynin bayba tagaynin ay soo codeynaynin marka qofku waxa la rabaa inay ka go'an tahay qofka uu codeynayo inuu yaqaano uu bari markii inaka aanustus uu bilawdo ama waxa la dhahaa codeynta ay bilaabato wiig ugu horeysa iyo wiigaga ku xiga inuu tagu soo codeeyo adiga caashu codeey ama cali u codeey laakiin adiga ha ka go'naato qofka aragtidiisa dhageysatay u soo codeey barito marka walaalayaal aniga maanta arintaas ay idinku imid hadda horena waxa loo yiri maxay ahayd ragga Soomaalida maxaa la dhahaa gabar aan rag ku tiirsaneen waxba ma aha marka ani maanta marka adinka wax ii qabataan baan wax noqonaya hadaan runta ka hadlo laakiin hadaan aniga waxba ii qabanin bari ana meelahaas aan iska carcaraya waxa waaye meeshan gaaray waa iska gaaray waxa laga yaabaa xataa hadaan maanta aan meel gaari waayo xataa inaan maxaa la dhahaa arrimaha hoose xataa aan iska hadlo laakiin marka aniga isoo saartaan waxa waaye image ka qurux badan ah helaysaan laakiin markuu qofka finishka uu ani isoo saaro oo dadkii Soomaalida aysan soo saarin iyadana waxa waaye adinkan way dhibaysaa anna way dhibaysaa waxa idinka codsanayaa gabar Soomaaliyan ahay waxa aad dareemaysiina anigana dareemaya marka ina maaragtay arintaas aad ka fikirtaan maanta inta Soomaaliyo kale oo banaanka joogta inta guryaha joogta inta maqaayadaha joogta aad u sheegtaan ani qof aan cambaareenayo malaha qof Soomaali oo leeyahay u codeynina ma jirto laakiin aniga ina ii codeysaan aan rabaa ina qof kale u codeysaan ma rabo marka intaasaan aan maxaa la dhahaa aan arinta rabaa inaan ku soo gabagabeeyo codeynta waxay bilaabanaysaa 10 bisha maxaa la bisha Oktoobar 14 ilaa 17 waa inanka aanusus waa wiig ugu horeeyo la codeynayo wiiga kale ku xigana waxa bilaabanaya xaafadaha in laga codeeyo waa la soo dhajin doonaa dadkiina cusub waxaa loo soo diray waraaqada gudaha loogu soo diray codeynaan leeyihiin magaalada waxaan ka maqlaayay dad la yiri kaliya qofka sharciga weyn lahaa codeyn kara waa been qofka sharciga leh ayaa codeyn kara waliba waxaan aad aan u sii jeclaan lahaa dhalinyarada cusub oo wadankan runtii 2010 wixii ka dambeeyay soo galay oo sharciyada hadda la siiyay
inaad dhagaysataan dadka soo sharaxan waxa ay yihiin waxa ay qaban karaan iyo waxa ay isan qaban karin adinkana inaad codeysaan qofka waxa waaye qofka inuu ku faano waa markii waraaqda codeyska loo soo diro la dhaho waxaad leedahay waa codeyn kartaa waa inaad codeysaa awoodaa leedahay inaad codeyn qofka markuu codeynayo waa qof nabdigiisa sheegan kara meel kale ku cilbixi kartid male maanta haddaan mati ama liisa ama siciido u codeyso waxa waaye codaa leedahay codkaagaa dhiibatay qofkaasaa ku raacday marka taasna inaa awoodda saartaan xisbiga hadda ani ka tirsanahay waxa waaye haddii aad fiirisaan home page-ka gali kartaan haddaa fiirisaan www.kokomus.fi haddaa gashaan xisbiga aragtidiisa oo English Swedish iyo Finnish arkaysaan xisbiga waa xisbiga Helsinki ugu awooda badan waa xisbiga waxbarashada ugu badan dadaa waxaa la yiri xisbiga Siciidoy maxaa kuu geeyay lacag leeymiya lacag ma rabtaa xisbigaas waxaa lagu dhahaa waa xisbi reer magaal ah annaka waxaan iska nahay dad oo waxaanay dhahaan haaboy kuneen dad oo maaragtay dhibaataysan marka waxaan ku yiri annaga Soomaali haddaan dhaqan fiirino niyadda waxaan ka nahay taajiraan ka nahay waxaan nala soo baray aniga hooyada waxay igu soo barbaarisay waa inaad istaagto markaad kuftid waa inaad istaagtaa banaanka cunuga markuu niyadda ka jibiyo waa inaad aad taystal la sameeysaa oo la dagaasho iska celisaa aad ka fiican tahay ilmaha kale marka dadkeena waxa lagu soo barbaariyay inaan dadka kale ka fiicanahay maxaa annaga stage nageeyay inaan maaragtay aan faqri nahay Soomaali waxaan uga soo tagnay wadankan inaan annaga wax ka noqono 40 sano 50 sano kadib waa la guurooyaa Soomaaliya loo socdaa marka hadii waliga laga dhaadhiciyay inaad tahay qof maaragtay faqri ah qof la dhibaateeyay qof la cusriyeeyay xisbiga wax ku qabanayo gooni ah ayaan laga dhaadhicin xisbiga Kokomus waxa waaye waa xisbiga kaliya oo mabda ah haysta in qofka uu wax qabsado in wax la barto annaga in caruurteena wax bartaan rabnaa in wadankan wax lagu yeesho annaga waxa aan rabnaa waxa way wadankan inaan kambaniyaal ku yeelana qofkana haduu wadanka wax ku yeelana hanti ku yeelana wax uu ka yahay marka dadkii la shaqaaleynayo kambaniyada lahaa oo dadkii shaqaaleynayo hadda annaga ka cararno yaana shaqaaleynayo oo aanu cararno dad iyagiiba baahimista ku wareeray waxa qofna shaqaaleynayo malaha marka dadkii waxaystay hadaan annaga u tagin oo aan dialogue la sameeynin oo aan miiska la fadhiisanin oo dhihin annaga saan aan rabnaa maanta hadaan iraado aniga waxa way guulan taaganahay hadii aan iraado sanadkiiba 10 dhalinyaro ii shaqaaleeyo sanadkiiba 5 dhalinyaro ii shaqaaleeyo ka saatuu ii geeyo waxa waa laakiin qof aan waxba haysanin hadaan maalin walba ku daba feelmado ani xataa position-kii aan taagnaa hoos aan uga dhacaaya marka dadka idin imaanayo idin dhahaaya xisbigan Kokomus waa cusuri lacagta ceeltay gooynayaan been idin sheegeen lacagta ceelta wadankan waaga airportka Helsinki maanta aan ka soo deganaynay mata iyo liis waa la siinay iyaga loo qoray dadkan waxa waaye waagi oo maxay ahayd dagaalkii Ruushka iyo Swedishka ay baabi'iyeen dadkan Finishka iyaga dhexdooda ay dagaalada wada galeen waxay sameysteen lacagtan ceelta inay iyaga ku maamulaan lacagtan ceelta iyaga loo sameeyay daraftu salakigooda ku qoran tahay wax adiga laga gooyn karo Soomaali ah marti hadii laga gooyo adna waa laga gooynaa marka waxa ku seexataan ya marka ilaahay waa marti laga gooyna anaga laga gooynaa marka dadka idin la hadlaayo oo idin imaanayo oo idin dhahaaya xisbigan Kokomus iyo xisbiyada kale lacag ay gooynayaan waxa waaye ilaahay kama baqin waxa runta kama hadlin xisbi lacag gooynaayo meesha ma jiro lacagtan dadka Finishka ugu talagaleen annaga waa iska imaana wadankan xoogeena ku joognaa ma ahane lacagtan annaga noo lagu talagalin laakiin Finishka waxa jira maxaa la dhahaa waxyaalo ay yiraahdaan maxaa la dhahaa ule sobonus oo kansabelina ule sobonus iyo contractier waxa jira oo European level ay wadankan saxiixdeen qaxootiga markuu irdaas ka soo dagayo waxa jira agreement ee wadankan Finishka ay galeen intaas qaxootiga inay qaabilaan markay qaabilaan waxa waa adi Soomaaliya kaama jecel dadka kale laakiin qaabiladaas lagu qaabilay waa wax tirkoob ku jira oo rajiis garaysan marka qof intuu ku imaado yuu ku dhin xaaskaaga iyo caruurtaada Kokomus ceeri ka goynaysaa ama xisbi kala ceer ka goynaayo wadankan anna waxaan jeclaan lahaa qof dadka Soomaalida inay meelaha ay ka hadlayaan ay ku faanaan maanta dadka ugu badan oo tagaasida wada waa Soomaali dadka ugu badan oo basaska wada waa Soomaali dadka ugu badan oo ka shaqeeya boostooyinka waa Soomaali isbitaalada gabdhaha iyo wiilasha ugu badan ka shaqeeya marka shaqaale ma nihiin maxana anaga marka taas ina dadka iimaan
يعني إن أو إذا كان لي ضد ما عرفتي إن محيه ضد إن لو وضع أنا ما أنت أنا الصومالي أنا هذا لكن أنا قفينش إنه إيه هذا المرة أنا هذا لاي marka maxaa anaga aan u ogolaanayna inay dad finish noo hadlaan dad anaga isku hadli karaanahay dad aqoon lahaan loo wada joogo wadanka dad wax bartaa joogo qof walba qofka kale waa ka cod karsan yahay waa ka hadal badan yahay dadkaas anaga noo hadlaay maanta ina finishkii aan daba taagnaana ma aha ama qof aan ba adiga ku hadli karin oo Soomaali ah oo asagiiba qofka finishka ku daba feelan ina u codayso xaqba ma qofkaas marka taas ina ka fikirtaan waa loo baahan yahay qof asaga hadlaayo oo waliba dadkiisa u hadlaayo oo ani markaan idinku soo noqdo oo aan idin karo Soomaaliya saana ku qaldannahay aan iska bedelno oo taas runtii idin dialogue run ah idin la sameeyay dadkaas loo baahan marka walaalayaal oo idin daalinin meel kuulan ku jirnaa waxaan idinka sugayaa kullay hadda soo markii laga soo noqdana waa isku soo noqonaynaa meeshaan aan ku haraayi bisha tobanaad bisha tobanaad waa imaanaya markoo maxaa la yiraahdaa ay bilaabato doorashada maqaayadaha waqtiyo badan waa lagu arkayaa aragtida waqaayadaha lagu arkaayna kaliya ma aha waa soo sharaxanay hadda la arkaya gabara ahay waa maanta xitaa markaan jidka soo socdo waa aadan lugaha gariiray waa soo socon laakiin waa soo badinaa socodka adinkana waxaan idinka codsanayaa kontaktigayga waxa waaye meesha aan ka shaqeeyay soo ka helaysaan meelaha lagu soo dejin doonaa qof walba oo su'aal qaba ama wax maxaa la dhahaa rabo inuu weydiiyo ama ii baahdo waxa meel walba ay helaysaa qaadana ay weydiisaan waa ay helaysaa marka walaalayaalow intaas aan idinkaga tagaya khayr aan idinkaga tagay aadana idinku mahadcelinayaa su'aalaha waa weydiin kartaan ya سؤال مقابل لكن حوار كومنت يا رب ترى يا سعيد قف أسأل إنه سبحان الله هاي أنا ما أسكيش لكن معنا يرد من وراء هذا الشيء سعيد كم شيء سعيد رحنا كنا عربي كنا نقول بطيئة مش هنبين سو عليه كنا بقى كسرنا الدنيا كنا ما هاي ما في بلد السينة هاي ولا نسوي هذا جبنا الأجنبي وقصر حنا هو غير سام أنا بفكر أجنبي جبنا كلام وصلنا كلام وصلنا جبتي هو غير أيدي جبنا الأجنبي تسمع جوا سمعنا كسر 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 سبحان الله جبنا سمعنا غير سعيد أربعة بسيط شغل جنسي سمعنا الجار قف بدر شغل جنسي استيما وقدمي هذه وبحين تسمي سيجري إنتي هلسين بسوق كنتي أربعة بسيط شغل جنسي وأنا قبل كورونا قيلها مصر كان أما ديرك أما منها برلمان لما دي كان لك ملشي بيدا الدولة الهوسة شرحت لكن رأيي أردان شيء أما عندنا عندي لها فجوار مناسب وأقوى هذه الطلب ويركلم هذه الطلب لقب سيردل هذه الطلب سيستم قوتك شو تسير كيف فهم هذه الطلب لكن عندي لا وصاد هذا قسمه رأي هذه الصوت شرحه بس كان جوار أو نمبر 1 الله باهي هاي جوار اعتماده وليش والوجي هاي وحش شيئين ورانا والوجي هاي لكن أنا قاعد أقولي لكن علينا هاي جوار كان هاي هيدي هو جوار ولا شيء هاي بعض يوحكوا في وحدة تاير كان سمعك رأوتي مثل جوار سعيدة ولا تاير هاي وقفنا جنب مدن وقالين هو قف كسر سومالي نحرجينهم بأساسهم بدرين مياه ومكي كمان قبل سمع الله مثلا أنا كنا ما هنا قلبي يجيبنا ودعنا وليش أنت في وليش الله بقول بقول بعد كل شيء يستاهل أنت قال لي كل ولا سحر مع ضياء واللي أنا معك أمر على سان تصرف فعلي لا يجيني إذا كذا وحياتها هاي عادة سومالي كمان تمام لكن ما بقى حسوتان بقول ما كان يسمع والله ما تبغى ها سيجي تحكتم هذا الله بقوله هاي هذا بقوله هاي هذا كنت ما هاي وأنا حاسس شو ده إذا خرج بس نقول يسوني ده كنت هاي يعني على هاي سينما ولا سكيب ده ولا شيء من واسع ده على هاي وده شرعي هاي سوى ده ما هذا ده هاي قفص وده شرعي كله وعليه كره هلسنكي قفص قبل تسوق ولا هلسنكي لا بس هنتكلم وعليه كره يعني جالس يقول بديه فما عليه كره الله يستيت ما هو بياسي ده هو يستيت مثلا كوي marka helisinki kaliya kaliya waxa ku noqon qofka Soomaaliya marka hadii laha walaashan loo codeeyo campaign-keeda waa taageerada kan kasta marka alle soo dhawaada
ولي سعيد ومقعد ومجرد ولي ما كان وسجان من سنة ولي إنه وقت قام بالحكومة هذا عن يدي الآسف ما ذكره ما شاء الله والله هو أريد أدي من هذا كده واحد أنا هو كان بصل فحاجة هذه من يجي كم لا يجي أنا كأصلا أنا مالس بيسوي إنه ولا يرجع كارنا هذا كارنا هذا أكيد مرة تانية أديك هذا كافتا قال لك أنا بريها دون عدي ويزيد أديك إلى هذا تسوى فيه وهذا صوم أنت تقول تانية بسم الله الرحمن الرحيم كل سعيد أيضا يقعد كسر وأنت عندي هاي كبر أيضا كريم ولكن يصير كلا عن يقول كذا وشيء لكن أنت كلي وأنا هذا نتعامل لها وأنا كمدين كوا وصومالي مرة والبابا منطقنا كل يبقى أي كسر ساحلين وحوي أنت عدينته وهرت عدين وده كان أرجع سما قاتو dadku waxay ku dagaalamaan waa afka iyo fikirkooda inay cod ku muujiyaan waxaad ogaataa haddii aad codaysid ama xisbi kaasoo coday ama kaasoo coday qof inta adduunka oo codaysay inay istaatiin ku jiraan oo dadkaan ay haddii la galayaan mataqaana istaatiin markaasna ay fiirinayaan adduunyo badan codeeyey oo Soomaali oo dadkaaga hayaan sidaas darteed haddaad ogaadaan inaad xiisaynaysid siyaasadda oo codayn kartid حسبي كستا أم عسرها هذا أم عمرها حسبي يقول شو تهرب كلام ما ما يجوز كلام زوجته أقول أمسيها بريطانيا هنا أقول مليون وأي جلس يقول عليه مرتب فضلوا حين كعسايا سعيدوا عليا علوا عليا عاشوا عليا لكن عليا كسر حنا حد كذي وحكوا تقالوا كذا كنت بعد كذا عملت كنت بعد كذا عرقة كنت بعد كذا وعكال عكال كذي بقى أنا dhegeystayaal saaxiibayaal waxaanu soo gaaray guntii iyo gabagabadii barnaamijkan maanta aan idinkugu talagalnay iyadoo sidoo kaleeta aan idiin soo gudbin doono barnaamijyadii taxanaha ee heesaha Soomaaliga ayaanu idinkaga dhex bixi doonaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Bashiir iyo dhammaanba bahda codka dhalinyarada Nuurtan Ani sidaa iyo nabadgelyo تشورة ديدا جهاجا نور كالي مركي أنشالي عبا جيتكوا عجائبي جي حيجي مديجيو نفت تشورة ديدا جهاجا نور كالي مركي أنشالي عبا جيتكوا عجائبي نفتك شريري عوتي جالان قادي هاوين كاي أيان جيري وعكي سيدي سهانو جيراني نفتو جيري عوتي جالان قادي هاوين كاي أيان جيري وعكي سيدي سهانو جيراني شقينو إنو تشيرو جليل كان همباريني كجعلي محاتدي جليل كان همباريني كجعلي محاتدي